بسم الله الرحمن الرحيم daawadayaashayada qiimaha iyo qadarinta lahow kusoo dhawaada TV-ga caalamiga ee Kalson TV caawa waxaanu halkan ku qaada dhigi doonaa qayb ka mid ah qaybaheennii taxanaha inoo soo ahaa oo aan kaga hadli doono sooyaalka ummadda Soomaaliyeed sidaanu horey idinkaga ballan qaadnay dhabka hadal waxaanu niri waxa uu kala qaybsami doonaa afar qaybood oo waaweyn marka qaybta aynu caawa soo qaadan doono waxay noqon doontaa qaybteenu ugu magac darnay amuuraha carreedik ama xaaladaha ka taagan geeska Afrika taasoon doonayno inaynu dib u milicsano sooyaalkeenii quruxda badnaa ee aynu ku lahayn dhulka geeska Afrika haddaynu nahay ummadda Soomaaliyeed haddaba maanta oo aanu jecelnahay inaynu mar kale aan dib idin xasuusino xaaladaha aynu taagannahay iyo halka aynu maraynay qarniyo ka hor ayaana waxaan doonaynaa inaynu ka hadalno geeska Afrika oo lagu tilmaamo dhul ay inta badan ku hardameen diimaha samaawiga ah ayaa waxaynu ka soo qaadan doonaa qaybtan ugu muhiimsan ee aynu leenahay waxtar ayay u leedahay bulshada Soomaaliyeed xilligii diinta islaamka ay ku soo fiday geeska Afrika ayaynu qaada dhigi doonaa inagoo jecel inaynu taxanaheena dambe ku soo qaadno qaybo aynu kaga hadli doono wixii ka horeeyay diinta islaamka iyo qayb aynu leenahay waa loo baahan yahay in ay ummadda Soomaaliyeed ay wax weyn ka fahanto qaybtaas oo ah dadka la yiraahdo faraacinta halkay asliyan ka soo jeedeen sida ay ku tageen dhulka Masar maanta loo yaqaan iyo qayb kale oo iyadana kaga hadli doono asnaamtii ay Soomaalida u iibgeeyeen ama ay u dhoofiyeen dunida Carbeed ama dunidii markaa jireysay haddaba qaybteenan caawa aan ku soo noqday carreedik waxaan doonayaa inaan daawadayaashayada aanu u bidhaamino halka ay ummadda Soomaaliyeed joogtay muddo imika laga joogo 600 ama 700 oo sano ka hor iyo halka maanta ay joogto inagoo doonayno inaanu mid uga hadalno qariirada ummadda Soomaaliyeed ay asliyan u lahayd iyo halka ay ka deganeed dunida ayaa waxaan doonaynaa inaanu koow ka hadalno isbedelkii ka dhacay boqortooyadii la oran jiray Shawa ama oo ku taalay bartamaha Ethiopia maanta ama halka maanta loo yaqaano Finifini ama gobolka Shawa ee loo yaqaano Addis Ababa maanta ayaa waxaan doonaynaa inaynu yar ifino dadka halka ku dhaqan iyo qaabka ay u fakari jireen ama awoodooda dhaqaale iyo dhaqan inta ay la ekeyd wabiga Bashilo oo ku yaala waqooyi galbeed ee dhulka maanta loo yaqaano Wallo oo ah xadka ay iska galaan ummadda Canfarta iyo Axmaarada oo waqtiga qaarkood ahayd xad ay Soomaalida iyo Axmaarada wadaagi jireen ayaa waxaa ku soo fiday duulaano aad u fara badan kuwaas oo ka imanayay dhulka loo yaqaano Tigray duulaanadaasi waxa ay mar walba ku saleysnaayeen dhul boob ama baaxadeg siyaasadeed ama in la barakiciyo ummadihii dhulka ku noolaa oo ay mar walba aaminsanayeen in ay dhulka uu yahay dhul ay ka dhaxleen awowyaashood wabigaasi Bashilo maanta isbedel weyn ayaa ku dhacay magaciisina waa uu isbedelay dabadeedna waxa maanta lagu qiyaasaa ama lagu tilmaamo inuu ku yaalo xundurta qoomiyadda Axmaarada la yiraahdo laakiinse waqtiga aynu ka hadlayno halkaasi waxa xundur u ahayd ama xad u ahaa ummadda Soomaaliyeed iyo ummadda loo yaqaano Axmaarada wabigaasi markaynu ka nimaano waxa jiro dhulka ay isugu iman jireen dadyoogii la oran jiray Agow Soomaali iyo Canfar halkaas oo ah koonfur galbeed ee Addis Ababa maanta halkaasi waxa ka dhacay dagaalo aad u qaraar dagaaladaas oo ahaa kuwa inta badan laga soo maleegay dhulka Axmaarada kuwaas oo ka sii horeeyay dagaalo iyaguna laga soo maleegay dhulka fog ee buurleyda ee Tigray waxaynu doonaynaa markaa in aynu hoos u sii dhaadhacno oo aynu damacno inaynu ka hadalno balse wax isbedelka ku yimid dagaaladaasi iyo cidda ay dhaxmareen mar hore ayaa waxaynu ka hadalnay Shawa Awfaad awdal iyo halgan aan ugu magac darnay halgankii ugu dhiig baxa iyo dhimashada badnaa ee soo mara ummadda ku dhaqan geeska Afrika kaasoo wajigiisu koowaad uu ahaa Soomaali iyo Tigray dhinaca kalena uu ahaa Soomaali iyo Axmaara markii dambe ay soohdin cusub ku soo noqotay qoomiyadda loo yaqaano Oromada haddaba dagaaladaasi aynu u bixinay halgankii iyo dhiig bixii ugu badnaa ee abid soo mara kuwa lagu tilmaamo ama ugu dheeraa dunidan maanta aynu ku noolnahay ayaanu iyadana doonaynaa bal in yar inaynu bulshada yar xasuusino dagaalkaasi waxaa lagu tilmaamaa xilliga ay ahayd 1112 milaadiga ama MD waxa loo yaqaano xilligaasi dadyooga xad kala leh qoomiyadda Axmaara
marka laga hadlayo waxaa lasoo qaataa dhowr qabiil oo hadda ka horna aan halkan ka sheegnay. qabaa'iladaasi waxay kala yihiin qabiilka la yihahdo warjeex, qabiilka la yidhaahdo manze, qabiilka la yihahdo wargur iyo qabiilka la yihahdo gabal. afartaa qabiil run ahaantii maanta la garan maayo halka ay jaan iyo cirib dhigeen, inkastoo ay jiraan qaarkood inay ku biireen ummadihii soomaaliyeed ee jabkii markaa kadib inay ummadihii soomaaliyeed ku biireen ayaa la aaminsan yahay. haddaba intaa haddaynu kaga sii gudubno, muxuu damacaasi ama dhulballaarsigaasi muxuu ku salaysnaa? damacaasi iyo dhulballaarsigaasi waxa uu ku salaysnaa laba arrimood. kow waa dal iyo diin ayuu ku salaysnaa. ummadda soomaaliyeed ee aynu ognahay dhulkooga maanta inta ka maqan $3 inuu $2 maqan yahay, uuna ku maqan yahay dhulka etoobiyada maanta loo yaqaano, ayaa waxaa lagu hayay wax loo yaqaano barakicin iyo barabixin iyo mooroduug, kuwaasoo isugu jiray hab siyaasadeed iyo hab dhaqaale. haddaba intaa kadib dagaaladaasi maysan ahayn kuwa wax yar ama wakti yar lagu soo koobi karo inaan caawa halkan aynu kaga hadalno. taariikhda soomaaliyeed ee guunka ah waa mid aan laga gayooneyn, habeenna aan lagu soo koobi karin, balse waxaan bulshadeena u ballan qaadi doonaa inuu noqon doono barnaamijka dhabka hadal qaybtiisa taariikhda mid silsilad ah oo aynu halkan kaga hadli doono mar walba iyo wacyiga markaa la taagnaa. haddii markaa aynu u gudubno isbedeladii ka yimid halkaa iyo qaabkii ay saldanadahaasi isu bedeleen, ayaa waxaan doonayaa inaan wax yar ka iftiimiyo qariirad aynu isleenahay wax badan ayay ummadda soomaaliyeed u ifin doontaa. qariiradaa aad arkaysaan waxa weeyaan halka ay ummadda soomaaliyeed qaab ahaan markeeda hore deganeed, sidii ay isu bedeshay saldanadii adal ee ay hoos tegayeen 7 saldanadood oo kale ah saldanadii la oran jiray dawaro iyo hadiya iyo baali iyo sharqa iyo arabini. intaaba iminka kasoo hadlayna waxay hoos tegi jireen saldanadii adal oo iyaduna markaa xarunteeda ay ahayd magaalada saylac. halkaasoo magaalada saylac oo ahayd magaalo aada iyo aada u camiran, ahna magaalo ka mid a magaalooyinka qadiimiga ee dunida maanta taariikhi ahaan aada loogu faano. saylac xagga diinta islaamka marka laga hadlayo waxa ay soo gelaysaa magaalada afaraad, waxaa keliya oo ka horeeya marka laga hadlayo taariikhdeeda iyo islaamka horumarka yani magaalada uu ka gaaray xadaaradda islaamka, waxyaabaha laga bartay diinta islaamka, ardayda ka soo baxay ama ka aflaxay yani culunteeda ama waxbarashadeeda waxay soo gelaysaa qaybta afaraad. waxaa kow ah magaalada maka ee barakeysan iyo magaalada barakeysan labaad ee madiina iyo magaalada saddexaad ee qudus. harar saylac waxay soo gelaysaa taa afaraad. haddaba haddii aan intaa kaga sii gudbo, saylac maadaama ay deked ahayd ayna caalamka isku xidhaysay ilaa wadanka china maanta loo yaqaano india, ilaa iyo wadamada dhexe ee ashiyada dhexe, dhinaca kale marka loo gudbo badda dhexe ilaa iyo galbeedka ama koonfurta yurubta maanta, ayaa haddana waxay harar saylac waxay sii naasnuujinaysay magaalada iyadana qadiimiga ah ee loo yaqaano harar. haddaynu iyada lafteeda in yar ka iftiimino, inta aanan magaalada harar aanan loo soo guurin, waxaa la deganaa magaalo la oran jiray dadkarna waxay ahayd halkii uu inta badan uu ka biloomay halganadii ugu baaxadda weynaa marka laga yimaado kuwii ifaad ama adaltii hore ay hogaanka u hayeen. haddaba harar inta aanan loo iman waxaanu nihi dadkarna la deganaa. dadkarna marka siday u eg tahay iyo sida ay tahay insha allah waad muuqaalkeeda ayaad arki doontaan. haddaba inagoo doonayno inaynu dib u xusuusino ummadda soomaaliyeed sida ay mar walba u jeceshahay inay ogaato ahmiyadda ay magaalada harar iyo magaalada saylac ay bulshada soomaaliyeed u lahayd iyo duniyada islaamkaba, ayaa waxaanu jecelnahay inaanu mar walba tusno halka soomaali ay joogtay iyo halka maanta ay joogto iyo halka ay mudan tahay maaragtay in laga hadlo. okay, intaa kadib dagaaladaasi maadaama aynu niri waxay ahayn kuwa aada u qaraaraa oona dhex mariyey 3 weji lahaa, ayaa haddana waxaynu doonaynaa bal in aynu mar kale dib u milicsano sida ay wejiyadeeda dagaaladaasi ay isu bedelayeen. sawirada qaarkood aad arkaysaan ama sawirka iminka aad arkaysaan, hogaamiyaha calanka sida waxaa lagu magacaabaa amiir nuur ibni mujaahid. amiir nuur ibni mujaahid waa nin taariikh weyn ku leh ummadda soomaaliyeed iyo ummadda islaamka ee geeska afrika degan. amiir nuur mujaahid waxa uu ahaa ninkii dhisay magaalada harar. magaalada harar eed maanta aragtaan qaabkay u dhisan tahay waxay leedahay 4 albaab. 4taa albaab ninka sameeyey ee gidaarka kusoo wareejiyey waa amiir nuur ibni mujaahid. amiir nuur ibni mujaahid wuxuu ku xardhan yahay jabkii afaraad ee ummadda soomaaliyeed soo gaaro kadib geeridii ku timid
axmed ibraahim khazali oo lagu magacaabi jiray duulaan badane. axmed marka uu geeriyooday kadib raggii dogobyada saaray taariikhda ummadda soomaaliyeed ayuu meel weyn kaga jiraa amiir nuur sababta uu magaalada harar ugu xiray xayndaabka ugu sameeyey ama uu gidaarka ugu xiray waxa weeyaan waxaa kusoo furantay soodin cusub oo ka imanaysay qowmiyadda loo yaqaano oromiya. saa darteed isagoo oo ka dagaalamaya dhulka loo yaqaano fatagaar ama hadiya ama meesha maanta loo yaqaano kafa ee ah gobolka ama ummadda loo yaqaano dabuub hisbooj ama koonfurta etoobiya dadka degan ayaa loo sheegay inay oromo usoo weedaaratay magaalada harar. saad kadib ayuu yimid saasuuna magaaladaas ku maaragtay uu gidaarkaasi uu ku dhisay. dagaalada iminka aad arkaysan haddaynu waxyar aydan dib u milicsano duulaankii aynu sheegnay ee axmara ama tigre laga soo lalabay ee ku wajahnaa dal iyo diin ama in lagu barabixiyo ummadaha halkaa degan ayaa weli waxaa daba socda ama waxay bar walba daba socdeen ideolojiyo ama istraatiijiyo u degsanayd sidii dhulka hoose ee buuraleyda ah looga qaadi lahaa ummadaha halkaa ku dhaqan oo hogaanka markaa ay u haysay qowmiyadda soomaaliyeed. waxaa jiray qowmiyado kale oo dagaalada ka qayb qaatay oo ummadda soomaaliyeed hil iyo hooba la dhinac taagnaa kuwaasi oon ka xusi karayno kuwan soo socda. dadka loo yaqaano daamuudka, dadka loo yaqaano hawaashiga galbeed oo ay iska mid yihiin dadka hareeriyiinta la yidhaahdo iyo hawaashiga hoose oo iyagana loo yaqaano dadkan maanta aad isleedahay mararka qaarkood waxaad moodaa inay kasii idlaadeen dunida magacooda ee la yidhaahdo oorgabaha. waxaa kaloo jira dadyow ka mid a maanta qowmiyadda oromiya oo loo yaqaano sidamo ama dad loo yaqaano hadiya oo markooda hore hoos imanaysaan sheegnay saldanadii ifaad ama saldanadii cadal kuwaasi oo ahaa iyaguna dadyow qaatay diinta islaamka kadib u hiil iyo hooba la garab istaagay ummadda soomaaliyeed. haddaba intaynu taa ku guda jirno ama dagaaladaasi aynu ku hoos jirno waxaa mar walba inaga bidhaamin ah ama in mar walba u baahannahay iyaduna inaynu fahno dagaalkaasi waa maxay faa'iidada uu ummaddaasi deegaanka ama dalka degan uu usoo siyaadiyey ama waa maxay waxa uu u horseeday noloshoodii dhaqan iyo dhaqaale. waxaynu oran karaynaa run ahaantii dadka soomaaliyeed guusha ama libinta maanta ay ku naaloonayaan ama ay ku hurdaan ma aha mid sahal ku timid, waa mid ku timid waran caaradii oo ay rag badan oo ka mid a awowayaasheen iyo kuwii kasii horeeyeyba ay naftooda iyo maalkooda iyo muruqoodaba u hureen sidii ay u difaaci lahaayeen sharafta iyo karaamada ummadda soomaaliyeed. taasi waana tan maanta aynu ku naaloonayno aynu ku fadhino aynu halkaa ku joogno aynu ku sheeganayno inaynu nahay dad wadaniyiin oo soomaaliyeed. haddaba 3 dalool 2 dalool haddii ummadda soomaaliyeed dhulkeedu uu maqan yahay aynu niri wuxuu ku maqan yahay laga soo bilaabo xadka axmara ilaa iyo webiga tana ilaa laga gaarayo meesha loo yaqaano mombasa xadkeeda hadduu intaa ku maqan yahay yaa halkaa iyadana maxaa la maqan ma dalon baa maqan mise dad baa iyagana la maqan. dabcan dad tiro badan ayaa la maqan. dadkaa waynu soo sheegnay waxayna ka mid yihiin maanta marka inta badan laga hadlayo 75% qowmiyadda loo yaqaano oromada sidaan hore uga hadalnay bulshada oromada waxaa loo kala saaraa boran iyo brentu. borantu waxaa lagu tilmaamay inuu yahay curadka qowmiyadda oroma laakiin brentu waxaa ku jira 10 milyan oo soomaali ah oo ku hadla afka oromada. 10 milyan isbedelka dhaqan iyo dhaqaale ee ku dhacay waa mid soo taxnaa ilaa 700 oo sano. isbedelkaasi waxaanu ka xusi karaynaa jabkii shanaad ee ku dhacay ummadda soomaaliyeed. jabkaasoo la oran jiray jabkii geedi guray waxaa weeyaan jab ka dhacay meesha loo yaqaano hadiya oo maanta ka mid ah koonfurta etoobiya ama qowmiyadaha laisku yidhaahdo dabuub xisbooj ama shucuubta koonfureed dadka laisku yidhahdo ayay maanta bartamo u tahay hadiya jabkii ka dhacay waxaa lagu xusaa oo aada looga soo qaataa 2 qabiil oo soomaaliyeed oo iyaguna ka dhacay meel aada u fog. 2da qabiil waxaa ka mid ah qabiilka loo yaqaano rendiinlaha iyo qabiilka kale la yihahdo tuutsiga. waa 2 qabiil oo u baahan runtii in aan iyaguna maalinba mid aan gooni u xusno, balse waxaan doonayaa inaan ummadda mid wax yar ka taabto sababta ay deegaan guurku ugu dhacay ama ay maanta u degan yihiin qaybkood wadamada Burundi iyo Rwanda, qaybna u degan yihiin bariga wadanka Kenya. rendiinle qaabka ay uga guureen deegaankaasi
waa anagu sheegnay iyo tutsi oo waxaa ku dhacay wax loo yaqaano jab iyo qaranjab qaranjabkaasi oo ku astan saanu sheegnay jabkii geeda guray reer diinle kolkii ay ka guureen bartamaha koonfurta Ethiopia meeshii ugu horeysay ay ku furteen geediga waxaa loo yaqaanaa lokaloka ama waxaa la yiraahdaa deegaanka Lishamis iyo Marinley iyo lokaloka iyo Marlal oo intaaba ka tirsan gobolka bariga maanta ee wadanka Kenya gobolkaas oo caasimadiisu ay tahay magaalada Embu deegaanka aanu ka hadlayno waxa uu u dhaxeeyaa labada magaalo kala ah Sielo iyo Moyale nimanka la yiraahdo Rendin laha waxa geedigaasi markay dhulka tageen ku soo dhaweeyay qabiilka loo yaqaano Samburta ama Sambur dadka loo yaqaano beesha ugu ballaaran ee loo yaqaano Arya iyo Rendin la waxay wada galeen axdigaas oo sheegaya in qabiilka Rendin la maadaama ay ummad muslima yihiin in ay ka tanaasulaan diinta ama waxa ay aaminsan yihiin dabadeedna axdigaasi waxa lagu galay buur aad u weyn oo u dhaxaysa deegaanka Lishamis iyo Marlal iyo Lishamis iyo Marlal dhexdeeda ku taal halka ayaa waxay ku gubeen kutubtoodii waxay noqdeen dad bilaadiina maanta 75% dadka reer diin la ee asliyan Soomaali ahaa ee koonfurta Ethiopia ka soo guuray waa dad masiixiina ama waa dad aan diin haysanba qabiilka kale Tutsiga marka aad joogto galbeedka Soomaaliya ama dhulka maanta Ethiopia loo yaqaan ama ilaa iyo gobolka Awdal ilaa iyo Djibouti marka aad joogto waa dad la tirsado oo laga hadlo taariikhdoodan la hayo waxa jirto waxa loo yaqaan heelada ama aabayda habluhu marka ama dumarka ay ciyaarayaan waxa ay ku hasaabaan ama ay ku soo halqabsadaan dadka Tutsiga ee maanta aanu waxay ku nool yihiin wadamada Burundi iyo Rwanda heeladaasna waxa kamid ah abaya hasho olasho abaanu u lahayn aba Tutsiga abaan u lahayn hadaba u fiirso markaad Kigali tagto ama Bujumbura tagto ee aad dadka Tutsiga u tagto magaca loogu yeeray waxa weey waa Aba Tutsi iyo ama Hutu ayaa la kala yiraahdaa heeladuna waxay leedahay Aba Tutsiga abaan u lahayn marka labada qabiil oo jabkii afraad ku astan kadib waxaanu doonaynaa inaynu yar milicsano halgankii dheeraa isaguna inagoo doonayno inaynu caawa barnaamijkeena inta hore aynu mar walba isku dayno inaynu wax yar ka iftiimino hore baan u afeefanay waxaan niri taariikhdan mid laga gayoonayo ma ahan waayo waa taariikh u baahan in aad waqti dheer la siiyo oo aan isku dayno inaan mar walba dadka in ka tusno hadaba in yar dib baan ugu noqonaynaa duulaan badane Axmed Ibrahim Gezale oo lagu magacaabo jiro duulaan badane markii uu qabsaday wadanka maanta Ethiopia loo yaqaano 95% ayaa waxaanu doonaynaa inaan wax yar ka hadalno meel loo yaqaano maalinka maanta loo yaqaano waa garta maanta waxay ku taalaa bartamaha dhulka Canfarta sababta waa garta loogu bixin waxay ahayd dhambaalkii kaga yimid Christopher Columbus oo hogaaminayay ciidamadii Portugiiska ayaa wuxuu halka ku soo gaaray dhambaal oranayo waa inaad isdhiibto hadaa tahay Axmed Ibrahim Gezale marka waxa uu yiri waa gartaayo waxaad sida u leedahay awood baad sheeganaysaa marka waa garta deegaanka saas loogu bixiyay kadib Axmed Ibrahim Gezale waxa uu bilaabay dagaalkiisii bari iyo koonfur iyo galbeed ba ahaa isagoo saan sheegnay 95% gacanta ku dhigay dhulweynaha Ethiopia maanta loo yaqaan ilaa xadka Suudaan ayuu gaaray ilaa dadka loo yaqaan Beejaha iyo Gamagofa dadka loo yaqaan iyaguna oo degan dhulka halka koonfurta ku nool hadaba inta kadib waxa weeyaan daawadayaasha qadarinta iyo qiimaha loo waxaan mar walba jecelnahay inaanu idin xasuusino ama dib idin tusno ummadda Soomaaliyeed heerkay taagneed iyo caasimadaha deganeed iyo sida ay caalamka u maartay wax ula qaybsanaysay iyo maanta xaaladda ay ku sugan tahay hadaba mar walba waxa naga go'an inaynu dhabka hadal ku soo deyno ama aynu dhabka hadal kaga hadalno waxyaabaha ay ummadda Soomaaliyeed hankeedii iyo dadnimadeedii iyo heerka ay joogtay mar waliba sad arkaysan sawirkan waa magaalada Saylac iyaduna oo xeebteedii ay dunida isugu timid oo lagu maartay dadku isku wareysanayaan ganacsi waa ka socdo waxa jira waxa casriga maanta loo yaqaan swimming poolka oo dadku ay waagaasi ahayd dad maartay xadaaradoodii heerka gaarsiisaneed fahansanaa nolosha iyo aragtida bulshadu halka ay caalamka kaga jirto dad fahansanaa qiimaha iyo qadarinta ummada ay leedahay qoomiyadu qiimaha ay bulshadu u leedahay magaca Soomaaliyeed
jiritaanku uu caalamka ku lahaa sida uu dunida oola dhiilgaraynayey sida uu dunida qiimo oga lahaa sida uu hidde iyo hibo u lahaa martabad baa jirtay ummadda soomaaliyeed ay lahayd martabadahaasoo aad iyo aad u qiimo badnaa marka laga hadlayo xagga abwaaniinta abwaan baa jiray abqari baa jiray booni baa jiray baxdow baa jiray yani suldaan baa jiray islow baa jiray wabar baa jiray garaad baa jiray malaaq baa jiray yacni waxyaabahaas o dhan waxay ahayn martabadaha ummadda soomaaliyeed ay lahayd oo nin walba uu ku astanaa ma jirin nin inta iska yimaado magacu doono iskala baxayo ama nin isaga intuu iska yimaado caanuhu doono isku shubayo ma jirin ummadda soomaaliyeed martabadahaasay kala lahaayeen hanbay kala lahaayeen qololbay kala lahaayeen deegaanay kala lahaayeen waxay kala lahaayeen nin walba meel buu bulshada kaga jiray halganku niba meel buu kaga jiray tusaalaha haddaan usoo qaadano dee geesiga waxa weye madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo wasiirku waa la doortaa laakiin geesiga lama doorto geesiga wuxuu kasoo dhexbaxaa bulshada dabadeedna hogaan buu bulshada u noqdaa waxaa loo yaqaano abaanduule abaanduuluhu isagaa isa soo saaro bulshada kasoo dhexbaxo waa geesii u horay naftiisa iyo dadkiisa inuu wax u qabto ma aha laakiin nin la doortay ama nin intuu u yeedho uu yidhi hebelow kaalay adigu maanta waxbaad hogaaminaysaa ama geesi baad noqonaysaa ma jirin abaanduuluhu bulshada kasoo dhex bixi jiray waxa uun kusoo bixi jiray astaan buu lahaa ama calaamad buu lahaa ama wuxuu lahaa haykal iyo sharaf u gooni ah oo uu ummadda ku hanto inuu ku hogaamiyo halka maanta ninkii doono uu doonayo inuu ummadda u taliyo ninkii doono uu doonayo inuu wuxuu doono ka hadlo ninkii doono inuu doonayo maaragtay inuu ummadda meeshuu doono maaragtay uu wuxuu doono oga sheekeeyo taasi markaa ayaanu mar walba jecelnahay bulshada soomaaliyeed inay nala fahmaan ummadaha islaamka ah ee halganka ummadda soomaaliyeed qayb ka ahaa ee aynu sheegnay ee aynu ka niri sida guraagada iyo sildeega iyo orgabaha iyo hawaashiga iyo dhamuudka iyo qayb ka mid oo bulshada walaalahana canfarta iyaguna run ahaantii taariikhdooda mid walba waxaanu doonaynaa inaanu gooni aanu ka dhigno oo aanu meeshaan kaga hadli doono waxaa kaloo jira isbedelada ku yimid siyaasadihii hagayey bulshada Ethiopia ayaa isbedelada ku yimid isbedeladaasi iyaguna waxaanu ku haynaa halkan waynu ka sheekeyn doonaa hadduu ilaahay yiraahdo mar dhow qaybo badan ayaanu ka haynaa waxaanu kasoo bilaabi doonaa ilaa iyo maaragtay halgankii lagu tilmaamayey inuu ka bilowday sida iyagu sheegaan meesha loo yaqaano Makeda waxa weeyaan waxa lagu magacaabi jiray Queen of Sheba ama boqoradii Shaba iyo King Solomon ama Nabi Sulaiman alayhi salam inkastoo ay sheegtaan qowmiyadahan Tigray iyo Ahmara especially Tigraygu iyo qayb Ahmarada kamid ah inay asliyan ka soo jeedaan Queen of Sheba iyo King Solomon iyaga waxaanu doonaynaa inaanu mar gooni ah ka hadalno qaabka ay u soo taxeen saldanadahooga ama ay u sheeganayaan mar waliba inay yihiin dad ku astan sooyaalka taariikheed ee King Solomon iyo Queen Sheba haddaba arrimahaas oo dhan iyo sidaysan isugu xigaan iyo qaabka ay u silsilada u samaysan tahay ayaanu jecelnahay inaan mar dhow bulshada soo bandhigno dabadeedna waxaan doonaynaa inaan haweenba qayb ka soo qaadno taariikhda aynu leenahay taariikhdu abwaankii Soomaaliyeed wuxuu yiri taariikhda waa la bi'iyay lama bedeli karo taariikhda lama bedeli karo laakiin waa la bi'iyaa qofka beento doon uu ka sheegi karaa iminka marka aad tagto jaamacadaha waddanka Ethiopia oo kale ama maktabadahooga qoraalada ay sameeyeen waxaad ku arkaysaa waxyaabo aad u badan oo aad la yaabayso oo qofka Soomaaliga ku noqonayso dhegag ama dabanahays iyagoo bedelay taariikhdii ummadan lahayd Amiir Nuur iyo Amiir Cali iyo Abaadir iyo Axmed Gurey ragay lahaa dhammaan waxa laga wada dhigay inay yihiin dad u dagaalamayay dhulkooda inay ilaashadaan laguna astaynay ka tirsan yihiin qowmiyadaha Tigray iyo Ahmara qaybna laga yiri qowmiyada Oromo ay ka tirsan yihiin waxaas oo dhan waxay ku imanaysaa haddii aadan taariikhdaada baranin taariikhdaada haddaadan aqoon qof ahaan isma micnayn karaysid waa in uu qofka Soomaaliyeed ogaado haddaadan taariikhdaada garanayn qofka aad tahay isma garan karaysid ismana micnayn karaysid marka waxaa loo baahan yahay especially daayarta in ay taariikhdooda bartaan ay dib u baaraan boorka ka jafaan nin waliba oo Soomaaliyeed ama deegaan waliba oo Soomaaliyeed waxa uu leeyahay xadaarad iyo taariikh u gooni ah misna waxaynu wada leenahay mid wadar ah oo aynu wada leenahay oo aynu ku faano oo aynu mar walba jecelnahay inaynu asaageen kula tartanno haddaba sidaynu asaageen ula tartamana waxay tahay waa inaan taariikhdeenu aynu dib u soo celino inagoo mar walba ka hadlayna waxaynu ahayn iyo waxaynu soo ahayn waxa inaga maqan iyo halka ay ku maqan yihiin bulshooyinka Soomaaliyeed ee dhalan rogmay
ee maanta qoomiyadaha Tigre ama Ahmara ama Oroma ka tirsan ee Soomaaliyeed qaabka ay halkaa ugu taloobeen ama ay ugu tallaabeen waa inaynu ogaan karayno sababaheeda, waa inaynu heli karayno in maanta aynu dib xiriir oo la samayn karayno dadyoogaasi Soomaaliyeed ee dhulka aanu sheegayna ku maqan. waxaa ka hadli doonaa hadduu ilaah yiraahdo dhulka Kenyada maanta loo yaqaano taariikhdeeda iyo dadka Soomaaliyeed qaabka ay halkaa ku tageen. waxaanu ka hadli doonaa dhulka maanta loo yaqaano koonfurta ama bartamaha Africa sida wadanka Chad iyo Niger oo kale dadka Soomaaliyeed sida xagga ugu tallaabeen. waxaanu kusoo gabagabeyn doonaa halgamadii faraha badnaa ee Soomaaliyeed ee marka dambe u soo weedaartay gudaha Soomaaliyada maanta, waqooyi halgankii ka socday, koonfur halgamadii ka socday, NFD kuwa ka socday, Soomaali galbeed kuwa ka socday ayaynu taariikhdeena ku xusi doonaa hadduu ilaah yiraahdo, inagoo markaa jecel inaan mar waliba idin xasuusino halka ay wax marayaan iyo halka ay arinu taagneed. kolka ugu dambeyntii barnaamijkeena caawa waxaynu jecelnahay inaynu in yar ku yara iftiimino hal mar inaanu in yar tusno waxa loo yaqaano damaca ama himilada. himiladu waa wax qofka uu la dhasho, damacuna waa aragtida iyo fakarka qofka ayuu ka yimaadaa. damaca waa wax loo baahan yahay inuu qofka damac leeyahay. haddaadan damac lahayn han ma yeelan karaysid, hanka qofka hadduusan lahaynna qab ma yeelan karayo. qabkana waa halka ugu dambeysa ee qofka uu ka noolaado. haddaadan qab lahayn hanna ma yeelan kartid, himilana ma yeelan kartid, waxna ma qiyaasi karaysid. qabku marka waxaa loo baahan yahay, Soomaaliga waxaa la yiri wuxuu yahay waa sabool qab leh, sabool qab leh, isagoo waxba haysan ayuu qab leeyahay. maadaama uu qab leeyahay waxaa loo baahan yahay qabka in la kaabo. marka tiirarka qabkaasi lagu kaabayna waxaa ka mid ah wadaniyadda, qofka inuu wadaniyadiisa si dhab ah u ogaado oo uu si dhab ah wadaniyadiisa u qabsado. wadaniyadaadana maxay noqonaysaa? wadaniyadaada waxay noqonaysaa inaad sharciga iyo nidaamka iyo cadaaladda iyo sinaanta qofka Soomaaliyeed aad dhowrto. marka waxaa imanayo qabkii aad lahayd, sumcadiisii iyo sinaantiisii iyo sharaftiisii dib buu soo noqonayaa. marka qoor walba waxaa loo baahan yahay inaynu ku dadaalno, inaynu fahno halka aynu joogno iyo halka aynu ku soconno. barnaamijkan dhabka hadal qaybtan ugu dambeysa ee minka isleenahay waxaanu maaragtay ugu macdarnay camuuraha carre adag. waxaa barnaamijka isku soo duburiday soona qabaqaabiyey aadan jaamac kaahin. dhinaca farsamada waxaa aad nooga caawiyey Axmed Yare. waxaan idiin soo gudbinayay ama idiin soo tabinaya anigoo ah Faysal Cabdullaahi Abrone. intaan barnaamijkan ku kulmi doono waxaan idin leeyahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.